السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برتيدا يوتيوب أبوجا ميديا qodobada iyo xogaha maanta aan idin hayo waxaa kamid ah dagaalkii ugu cuslaa oo dhaxmaray ciidamada ka tirsan Puntland. Haddaba maxaa qasaare ah oo ka dhashay maxaase ka jira in sarkaal caan ah lagu diray halkaasi. Faahfaahintii ugu dambeeyay ayaa halkan idinku haya, sidoo kale waxaad daawan doontaan oo qodobadana kamid noqonaya Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka digay qatar aad u weyn oo ku soo wajahan gudaha Soomaaliya. Haddaba maxay tahay qatartaasi waan idin faahfaahin doonaa. Sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda Muqdisho oo wada abaabul ka dhan ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, isla markaana iclaaminaya dibadbax loogu magac daray iscazil mudane. haddaba qodobadaas iyo qodobo kale iyo xog xasaasi ayaa halkan idinku soo gudbin doonaa. ha yeeshee waxaan marka hore idinka codsanayaa in aad subscribe noo saartaan abogeena. waayahay aan ku bilaawno. waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland maanta ka dhacay iska horimaad geystay khasaaro isugu jira dhimasho dhaawac, wuxuuna dhexmaray ciidamo ka tirsan kuwa booliiska maamulka Puntland oo halkaasi ku lahaa bar control oo laga ilaaliyo garoonka diyaaradaha, iyo sidoo kale ciidamada BSF ta Puntland. waxaan la sheegay in halkaasi ay ku dileen taliyihii guud ee ciidanka booliiska, gaar ahaan kuwa ilaalada ka ah garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe. ciidankan iska horimaadka uu dhexmaray ayaa la sheegay inay isku khilaafeen ciidamada BSF ta oo wehelinayay gaadiid shixnad wada iyo kuwa dagaal oo halkaasi qaar ka mid ah looga reebay, taas ugu dambeyntii dhalisay in halkaasi dagaal uu ku dhexmaro. dhimashadu waxay hadda gaaraysaa ilaa iyo 3 ruux, waxaa ku jira taliyihii guud ee ciidanka garoonka diyaaradaha oo halkaasi lagu dilay iyo askar kale oo ka tirsan kuwa booliiska. xaaladda ayaa hadda ah mid aad u kacsan, mana jiro wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha booliiska ee maamulka Puntland. shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda Muqdisho ayaa dhawaan bilaabi doona abaabulka ka dhan ah kacdoon looga soo horjeeda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana socda qorshe lagu abaabulayo dibadbax loogu magac daray iscazil madaxweyne kadib markii aad ku guuldareysatay hogaaminta dalka, ciidamada iyo sidoo kale dagaalka lagula jiro kooxda dowladda ka soo horjeeda, iyo in dalka xilligan aad ku wado qaldan oo ah doorasho qof iyo cod ah, sida aan ka soo xiganay abaabulayaasha dibadbaxa. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilligan la kulmaya culays ka dhan ah qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimadda Muqdisho iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka kuwaas oo ka soo horjeeda qaabka dowladda ay wax u wado iyo sidoo kale nidaamka villa Soomaaliya. sidoo kale dowladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo Xasan ayaa hadda ku furan dagaal dhowr furun ah oo dhinaca gobolka Shabeellada Hoose, Shabeellaha Dhexe, Hiiraan iyo qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. dibadbaxan loogu magac daray iscazil madaxweyne ayaa wuxuu ka dhici doonaa taalada daljirka Dahsoon iyo fagaarooyinka waaweyn ee magaalada caasimadda Muqdisho. waxaan hadda socda daabacitaanka boorarka uu ku siban yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee lagu soo xardhay qoraalka ah iscazil mudane madaxweyne. ugu dambeyntiina daawadayaal, Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in qatar weyn xilligan ay ku wajahan tahay gudaha Soomaaliya, isla markaana loo baahan yahay in ay ka gaashaamato Soomaaliya. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan dalal fara badan oo cadow ku ah Soomaaliya, isla markaana qorsheynaya waqtigan in ay kala dhantaalaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan dalka. Koonfur Galbeed, Jubbaland, Puntland, Galmudug iyo Hirshabeelle ayuu tusaale u soo qaatay, wuxuuna ganafka ku dhuftay in qaar ka mid ah Itoobiyaanka ay xilligan xulufo la noqonayaan, qaarkoodna wadamo kale ay iibsanayaan madaxdooda, taas uu ku tilmaamay in ay tahay wax aan loo baahnayn. Soomaaliya waxay ku jirtaa qatar aad u weyn oo u baahan inay ka gaashaamato, waana tan aan uga digayo shacabka Soomaaliyeed, ayuu hadalkiisa ku daray Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo mar ka soo noqday gudaha dalka ra'iisul wasaare, isla markaana xilligan ka hadlayay arrimaha siyaasadda iyo guud ahaanba amniga dalka. wax uu quus xoogan uu ka muujiyay
midnimada shacabka Soomaaliyeed iyo madaxdooda, wuxuuna sheegay haddii arrintan indhaha laga laabto in ay dhici doonto Soomaaliya oo gobol degmo tuulo iyo deegaan loo qeybiyay, isla markaana dalka ay la wareegeen dowlado kale oo isugu jira kuwa cadaan ah iyo sidoo kale kuwa madow ah oo uusan si toos ah farta ugu godin. hayeeshee waayihii dambe waxaa jira hadalhayn aad u ballaaran oo ah in Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Jubbaland iyo Puntland ay xiriir la sameysanayaan Ethiopia iyo Imaaraadka Carabta, taas oo ku soo aadaysa hadalka ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo ku tilmaamay in ay jiraan cadow fara badan oo Soomaaliya waqtigan raba in ay kala qaybiyaan. haddii aad ka mid tahay kuwa daawanaya waqtigan, waxaan ka codsanayaa in aad barteena YouTube subscribe noo saarto, isla markaana aad ka mid noqoto inta nagu xiran si aad u hesho xogaha iyo macluumaadka halkan aan ku soo gudbino. mahadsanid.